muqdisho waa halkii uu ka bilaabay dhowr sano ka hor riyadiisa ganacsi waxa uu si maalinlaa u adeegsadaa baraha bulshada sida TikTok, Facebook iyo Instagram waxaana ku xiran in ka badan 400,000 oo qof oo uu si joogto ah ugu gudbiyo alaabaha cusub ee uu iibiyo bal qiyaas waa kuma qofka aan ka hadlayno. السلام عليكم صاحبيال وإذن سلامي مقعي ومحمد مؤمن وحانا هاي أساسا شركة إيسهال وقشقية نظام أونلاين مع ميشان وحي كلا جوغان قبالة دالكا يودي بديسة وحكمي دا قبالة دالكا سيدا حرقيسة مقدشو كسمايو بلدوينة يوم قالوين كلو بدن سوكا لو حاجر معميل كلا أو جوغتا وضمادا يوروب أمريكان أو سيمالنا نوباديبتو دادكاس نقا أديغانا العقا وحي قدران habka lacag bixinta ama programmiska lacag bixinta sida EVC, JAB, eDahab, Premium Wallet iyo adeegyada kale ee lacag bixinta gudaha dalka ka shaqeeya. Website-yada caalamiga ah sida Alibaba ama 1688 waa halka uu ka soo iibsado alaabaha isagoo jooga xaruntiisa ganacsiga. Waxa uu si dhib yar ku bixiyaa lacagaha. Haddaba sidee? Waxaa lacag bixinta u adeegsadaa Mastercard-ka dalka sida kan Wafi, kan Salaam Bank, kan Premium Bank iyo bangiyada kale ee Soomaaliyeed Mastercard-ka ay bixiyaan. Hal tallaabo oo ku dhisan hal abuur ayaa horseed u noqon karta wadadaada guusha. Adeegsiga fintech-guna waxa uu ku furayaa albaabada dunida oo dhan isagoo ku suurtagelinaya inaad si sahlan ula xiriirto shirkado iyo macaamiil ku kala nool darafyada caalamka. Ku soo dhawow safarka cusub ee fintech Soomaaliya.